بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 254 عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه رواه النسائي والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان maanta taariikhda islaamka ay tahay 18 bishii sagaalaad ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 11 bishii shanaad sanadka 2020 waxaanu ku jiray mawduuceeni qiimaha badnaa ee ramadaan iyo xaaladihiisii kala duwanaa qaybtiisa khaaska ahayd ee ku saabsanee suxuurta iyo fadaaisha ay leedahay ayaan maanta khatimaynaa xadiidka u dambeeyey aanu gabagabaynaynaa suxuurta iyo fadaaisheeda waanu ku dheeraanay suxuurta inaanu maaragtay ilaa 4 ilaa 5 ku dhawaad xadiid inaanu ka sheegno sababtoo tahayna anagu maana samaynayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ahmiyadaas aad iyo aad u siiyey oo suxuurta in badan axaadiis badan ka sugnaatay fadligeeda iyo boorinteeda iyo jeclaysiiskii in lagu dadaalo saa darteed baa annagana marka inaan iftiimino in badan oo kamidana dadku ay dhayalsadaan ama ay yaraystaan suxuurta maanta xadiidkaanu qaadanayno waa fadli kale oo suxuurta uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay catiya iyo siisma min allahi subxaanahu watacaala ka timid ee marnaba ha ka teginaa leeyihi cabdullaahi maaragtay ibnulxaarith taabiciga jaliilka ah ayaa yuxadithu ka waramaya can rajulin nin buu ka warinaya min asxaabi nabiy sala allahu alayhi wasalam saxaabatu rasuulillahi haddaana magaca qofka la sheegin jahaaladaas iyo magacaabitaan la-aanta waxba ma yeelaysa xadiidka nin saxaabadii kamid a ayuu ka warinhayaa wuxuu yihi ninki qaala wuxuu yihi dakhaltu waxaan u galay cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaan usoo galay buuri wahuwa nabiguna yatasaxaru uu suxuuranhayo nabigoo suxuuranhayaan usoo galay buu yihi faqaala markaasaa nabigu wuxuu yihi inahaa barakatun inahaa suxuurtu weeye barakatun waa barako weeye acdaakum ullahu alla uu idin siiyey iyaha ayadi waa barako ilaahay idin siiyeye falaa tadacuuhu ha ka tegina ikhwat alislaam waliimaan xadiidkan xadiid kooban weeye alimaam nasaa-i baa soo saaray kitaabkiisa sunanka ah sheekh albanina uu saxiixinaya raqamka xadiidka sunan nasaa-i 2162 nabiga halkan wuxuu noogu cadaynaya calayhi salaatu wasalaam saxaabiga jaliilka markuu usoo galay nabigoo suxuuranaya baa rasuulku wuxuu yihi inahaa baraka in badan baa lafdiga ay soo noqotay tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka waxaa soo maaragtay wax badanoo barakada lagu sheegay marka nabigu wuxuu yihi waa barako weeye suxuurta acdaakum ullahu iyaaha ilaahayna uu idin siiyey waa barako ilaahay idin siiyeye falaa tadacuuha xadiidkan laba faa'iido oo cadiima oo suxuurta ku saabsan ayaanu ka qaadanaynaa 1 ama 3 faa'iidaba midda koobaad inay suxuurtu barako tahay buu nabigu ku cadday inahaa baraka weeyaan buuri ta labaad inay cadiya tahay cadiya min allahi siismo alle xaggiisa ka timid acdaakum ullahu ilahay uu idin siiy iyaha waa cadiya iyo hiba rabbaaniya oo alle uu bixiyey oo inagoo ummadiisa islaamka uu siiyey ta saddexaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ree falaa tadacuuh ha ka tegina marnaba ha ka tegina laleeyahy ha ka tegina idan inaan laga tegin suxuurta maadaama barako tahay maadaama siismo ilaahay xaggiisa ka timid ay tahay inaan laga tegin suxuurtaas ayuu nabigu adkeeyey idan waa 1 inay barako tahay buu caddeeyey 2 inay siismo rabbaani ay tahay buu caddeeyey 3 wuu reebay in laga tago falaa tadacuuh ha ka tegin mar haddii barako ilaahay xaggiisa ka timid ay tahay ha ka tegina idan inay la suxuurto oo haba yaraatay inay wuxuun la cuno ayuu nabigu aad u taakiidinhayaa idan xadiidkan aan kusoo gabagabaynayna maanta suxuurta xadiidka cadiimka weeyaan inahaa barakatun acdaakum ullahu iyaaha ilaahay uu idin siiyey ayada ee falaa tadacuuha ha ka tegina waa nahyi falaa tadacuuha ha ka tegina
suxuurta ha ka tegina. idan ikhwatii fillahi, halka waxaan ka faa'iidaysanay ahmiyada iyo qiimaha ay leedahay suxuurta. daanu dib u milicsano inta xadiid aan qaadanay iyo fawaa'idda lagu sheegay. xadiidkeenan maanta waxaa lagu sheegay inay barako tahay. waxaa kaloo lagu sheegay inay siismo ilaahay ay tahay oo alla xaggiisa ka timid oo alla uu siiyey, muslimiintiisa uu siiyey. waxaan soo maray faa'iidada kale saddexaad aan shalay kusoo maray xadiid kale, inay qadaa maarata mubaaraga ay tahay. qada inay tahay mubaaraga, qada mubaaraga inay tahay. waxaa kaloo soo maray inay maarata xaqiijinayso mukhaalafatu ahlulkitaab, oo innaga iyo ahlulkitaabka farqiga lagu kala garto soonkeenna iyo soonkooda. waxaa ka mid ah fawaa'ideeda oonu soo maray inuu maaragtay nabigu calayhi salaatu wasalaam suxuurta cunitaankeeda waa barako wey. waxaa kaloo soo maray inuu yidhi malaa'igta ayaa u ducaynaysa dadka suxuuranaya. waxaa kaloo soo maray inuu maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisanayo oo waafajinaya khayr oo dhan, waafajinaya suxuurta dadka ee mutasaxariinta. waxaan soo maray maaragtay inahaasoo dhan waa waxyaabaha suxuurta fadaaisheeda aanu kusoo maray wey. idan xadiidkaas aanu kusoo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala. waxaanu qaadan doonaa maadaama oon 10kii dambe aanu gelayno, maanta 18 weeyaan, 2 beri basaa nooga hadhay. waxaanu dib u bilaabaynaa insha allahu tacaala. haddana aan gees u milicsanayno qayb kale, yani 10ka dambe ramadaanka iyo fadaaisha ay leedahay iyo leylatulqadarka ku jira iyo wixii ku saabsan. kadibna waxaan ku xujisiin doonaa zakaatulfidriga iyo qaabka qofka muslimka looga baahan yahay iyo intay tahay qadarkeeda iyo sida loo bixinhayo iyo waxa la bixinhayo baanu iyo cidda la siinhayo ayaanu ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala. idan halka maanta waxaanu kusoo gabagabaynay suxuurta iyo fadligeeda. inahaa suxuurtii barakatun, barako weeye, acdaakum ullahu alla uu idin siiyey, iyaha iyaduu idin siiyey, ee falaa tadacuuhu ha ka tegina. war waa siisma cadiya rabbaani ah oo rabbulcaalamiin idin siiyey, ee ha ka tegina, joogteeya weeye oo ku dadaala weeye. ilahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusanuun irsaaqa xaqa raacitaankiisa, sunnada nabiga haysashadeeda iyo maaragtay nabiga raacitaankiisa iyo ku dhaqankeedana inuu ilahi subxaana watacaala na waafajiyo naguna sugo. hal mar baa xadiidka ku celinhayaa. الحديث 254 عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.